السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تعالى ونكسن وأنا أستاذ سبري الكنا داون سو كنا كابلين ما أنتوا حروستي قد قلت أنا 10 كيني نسعودي كوساب سنة أبكا مايكروسوفت ويندو 10 10 بدنا يا رؤوس قادني 10 كان و10 كي سدحات أيام فيلا marka maanta waxaan ka bilaabaynaa how to shut down the computer computerka sida loo damiyo computerka marka la daminayo waxaa isticmaali kartaa step badan marka halka step ugu fudud ugu horeeya ayaan qaadan doonaa waxaa sameynaysaa computerkaada marka oo halkan yahay waxaa sameynaysaa waxaad tegaysaa halkaas ay ku hortay start kadib waxaad sii tegaysaa power kadib waxaa ku dhufanaysaa halkaas ay ku hortay shut down ayaa ku dhufanaysaa kadib uu damayaa computerkaaga su'aasha kale casharka waxa uu how to hide all icons on the desktop sidee loo qariyaa iconada dhammaan saaran desktopka stepka sameeyna waxa waaye halkan ay imaanaysaa waxa leedahay right click then waxa taabanaysaa halkii ku qoran tahay view then kadib waxa sii tegaysaa show halkay ku qortay show desktop icons kadibna way qarsoonayaan dhamaantood halka ayaa ka soo muujinaysaa view ay tegaysaa kadib waxa leedahay show desktop icons casharku waxa weeye how to show how to show or hide standard icons on the desktop si loo qariyaa iconada asaasiga ama loo soo muujiyaa ee computerku leeyahay marka computer la soo galo waxa jirto 5 icons la socoto oo isagu ku programsan yahay waxa kale oo aad aragtiin waa wax lagu soo install gareeyay marka shanta icon waxa ka soo muuqaya halkaas geeska shantaas xabo waaye kaas my document my computer my network recycle bin iyo control panel waaye sidee loo qariyaa kuwaas marka ama loo soo muujiyaa stepka koowaad waxa waaye right click ayaa leedahay waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay personalize waxaa ku sii dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay themes aad hoos u wadaysaa ama haddii inta aysan kuu tahay halkaas ay kasoo baxaysaa laakiin haddii computerku aysan kuu tahay hoos ka soo baxa hoos ka raadinay okay aniga saan haddii igu qaadan ii tahay maximize haddii ii tahay waxaa ku dhufanayaa desktop icons sinta ku dhufanaysaa kadib halkan ayaa tigta kasoo qaadaysaa wax alla wax inaa qariso markaa saaraysaa markaa soo muujinaysana tigta ayaa soo saaraysaa hadda aan ka wada qaadno kadib okay dheh kadibna waa kuwaasa ma yaali okay waxaa ku xigo how to change standard icons on the desktop sida loo bedelo standard iconska behaviorkiisa ama colorkooda يعني 5 سنتي حبو سيدا كلر كده لوجو بدلا isla stepka asaanaysa beerashada ay tigaysaa kadib waxa ku noqonaysaa themes kadib desktop icon setting horta noo soo door noo soo muuji kadib waxaan bedelaynaa sawirka saaran this PC ama personal computer PC wax laga soo gaabay personal computer kadib waxa ku dhufanaysaa change icons kadib iconka arrow ayaa saaranaysaa icono badan hadaad haysan halkaas ay uudaysaa filaarta ama halkaas ay riixaysaa kadib anyway aad rabto ayaa saaranaysaa dadkaas noo saar okay dheh kadib okay sii dheh kadib waxaas ahaa hasaan u kala hagaaji name dheh saan dheh kadib waxaas ahaa may PC kala ka fuula ujeedaa ee computer saarnaa ku fuula ayaa saaranay cashir ku xiga waxa weeye what is taskbar maxaa la taskbar waxaa la islocate wuxuu ku yaalaa wallahi at the bottom 8 bottom hoose of the desktop ee shaashada you can click ayaa ku sii kartaa on the taskbarka and drag waxaad u jiidi kartaa to another location meel kale u jiidi kartaa yani taskbarka ayuu ka hadlayaa taskbarkina waa kana aha ama ocean hoosoo dheer ayaa la taskbar waxaa ku xigo how to move sida loo dhaqaajiyo taskbarka by using oo isticmaalaya mouse sida loo dhaqaajiyaa iyadoo by keyboard iyadoo by mouse iyadoo by keyboard by mouse kan hormarayna let's go waxa sameynaysaa horta marka hore waxa fiirinaysaa right click ayaa ku leedahay taskbarka korkiisa meesha hadii log ka tahay log ay ka qaadaysaa kadib taskbarka ayaa dul tagaysaa lift click ayaa qabanaysaa filaarta kore u jiidaysaa okay wakaas kor u tagi move dhaqdhaqaaqana ku soo saaro dhinaca aragtigiisa wakaas okay kor hadaan geeyo ka soo laabto waa qaban halkaas halkan qabanaysaa waa soo jiidaysaa halkaas ay keenaysaa by keyboard waxa taabanaysaa inta click hadii halkaas click ku tahay ma ku sameynayso dulta click kadib waxa taabataa alt space taabo kadib move ayaa u baahan move waxa iska xariiqa xarafka m ayaa taabanaysaa then waxa isticmaalaysaa filaaraha arrowkiisa isticmaalaysaa mid kore
kadib waa kaasa kor u yaadaya dhinaca rabta awoodaysa afarta filaar oo ku taala numeric keyska agteeda ayaad riixaysaa midba jihada rabto inaad fahantaa filaa oo ka alt space kadib press m riix kadib move enter dheh ama arrow keyska isticmaal for arrow use arrow keys to position it when you position taskbar press kaasa ay waxa ku xigay how to resize taskbar by using sida cabirkiisa loo weyneeyo taskbarka asagoo by mouse iyo asagoo by keyboard dad fahantay how to move kana waa iska fudud filaarta ayaa soo wadaysaa waxaa saaraysaa halkan afka ayaa u saaraysaa taskbarka geeskiisa marka laba noqoto laba filaarood kadib lift ayaa qaadanaysaa kor u jiidaysaa way by mouse okay wakaas cabirkiisa weyneeyo marka soo yareeyayna by keyboard ku soo yareynahay waa dultiga asna waxa la alt space baa leedahay kadib size u baahantay size maxaa iska xariiqan iska xariiqan kadib filaaraha oo isticmaal okay alt space dheh okay alt space ayaa leedahay size ayaa taabsa kadib filaarta ay kor u jiiday hoosna u soo celiyo okay ka soco ciwaan ku xiga waxa weeye how to log or unlock taskbar si loo gugu xira hadda arkaysa red taskbar ku dulaysa halkaas log taskbar ayaa kil ku siinaysa hadda kalooga saaran taskbarka ma dhaqaaji karo okay hadda ka qaad kaasna waa iska fuday how to hide si loo qariyo display loo soo bandhigo taskbarka si loo qariyo loona soo bandhiga taskbarka u shaan si loo qariyo red click ayaa ku duleedahay taskbar sit ayaa leedahay taskbar sit dheh kadib automatic hide taskbar oo in the mood ku dhufo haduu soo laaban hadda qorsheyn hoos u jeedaa Soomaa inta tigta saar kadib waa kaasa hadda u baahan tahay hoos filaarta gelin ku soo baxaa reedka ku dulle taskbar sitin tigtiga soo hadalkaas halkaas uu ku shaqeynay waxa ku xigo how to hide waxa ku xigo how to hide si loo qariyo display loo soo bandhigo how to hide sida loo qariyo waxa ku xigo how to hide sida loo qariyo display loo soo bandhigo dal icon at the taskbar saacada taskbarka saaran si loo qariyo loona soo bandhiga idmin saacada halkan saaran laga wadaa asaganaysa right click ayaa leedahay taskbar sitin ayaa ku dhufanaysaa kadib filaarta hoos ayaa wadi hadii halkan processka uu ka qarsan yahay hoos waxa isticmaalaysaa scroll barka muuska isticmaalaysaa oo filaarta ayaa tigaysaa idina kor u jiidaysaa kadib waxa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay turn system icons ayaa ku dhufanaysaa kadib halkan waxa ka raadaysaa o'clock saacada wata saa kadib waxa leedahay off ayaa leedahay asaaba qarsanta halkaas lugda halka soo fiiri kadib saar tigti oo ku soo laabay wata saa I hope you understand waxa ku xigo kale ciwaanka la yiraahdo what is start button maxaa la halkaas buttonkaas hadii ka dibina kumudka la start button soo calaamada waxa ku qoran iconka windowga halkaas ayaa la ka soco how to active start button si loo soo kiciyo start button sida loo soo kiciyo start button si loo soo kiciyo start button si loo soo kiciyo waxa dhigi kartaa click start saddex process oo sheega start button ayaa click ku dulay kartaa ama waxa taaban kartaa control escape ama waxa dhigi kartaa window keyga ku yaalo keyboardka ayaa taaban kartaa okay yani san si lagu soo sidaa waa okay ina dhahdo control escape ama window key ama inaad click start button click siiso saddex option loo soo kiciyo how to start si loo soo daaro application window daaqad application loo soo daaro it means daaqadan ku hadla hada no from ba meel kale uma baahnin hadana casharka ta ku sharaxay waa app clear window app clear mc word waaye yani oo documentiga ka xasay daaqadan camal si loo soo kiciyo oo ay sidan taabani okay marka waxa ku xigo markaas double click waa kana wuxuu double click dheh ama right click dheh then open dheh I hope you know that parts of application window qaybaha window application window uu leeyahay waxa ugu horeeya control menu box ugu horeeya saddexaas calaamad ayaa la saddexaas calaamad ama markii la dhaho alt skip boxkan ku soo baxay alt space marka dhaho boxkan ku soo baxayo ayaa la control menu box ama saddexaas filaarada saddexaas calaamad sida close-ka maximize-ka iyo minimize-ka kuwaas ayaa la control ayaa waxa la control menu box waxa ku xigta title bar halka ciwaanka ku soo muuqaal rabaa
hadda documentiga noo furan waxaa la window 10 update to 2023 markaas halkaas ciwaan kusoo magaca waxaa la title bar waxaana hadalkan Soomaali kugu sheegay waaye waxaa ku xigo menu bar halkaas ayaa lahaa calaamadaas ayaa lahaa waxaa ku xigo scroll usha ayaa lahaa wax kuudeen usha documentiga markaa rabaa kor wado halkaas ayaa waxaa lahaa scroll bar waxay noqon kartaa hal u dhahay vertical iyo horizontal vertical joog iyo horizontal tv noqon kartaa waxaa ku xigo minimize button waxaa la menaska halkaas ku yaalo oo saddexdii xabo oo lahay content box intaas oo menaska waxaa la minimize waxaa ku xigo maximize waxaa la markay saan tahay ee halka wareeg tahay halka afar gees tahay markaas maximize Allah waxaa ku xigo restore ayaa ku restore button waa markay laba xabo halka afar gees oo laba laga dhigo saaran markay tahay waxaa la restore down ayaa Allah close button ku xigo close button waa taqaanaa window border halkan wareega ayaa lahaa ama geesahaas oo windowga abkan shidan ayaa waxaa la window border information kiyo image halkan ayuu ku jiraa waa kaas okay halkaas aan ku joojinaa casharkan waxa su'aal fahmuysana waxaan ka codsanayaa markaan isku imaan insha Allah hadii weydiiso. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.